بسم الله والحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم walaalayaal galabta waxaa weeye waxaan rabay gabadhii oo ilhaan cumar oo magacaas hadee awraad ka taliya waxaan idhi ilhaan gabadha la yiraahdo miima laga dhigo warkii marka arrintii dhacday oo runtii anigana dadkii ka hadlay aan ku jiray oo waliba si xoogaa adag oo hataa habaar ku jira aan uga hadlay ayaa war iga soo noqday oo nin la yiraahdo idaa waqaca oo nin la yiraahdo wadaad la yiraahdo sheekh cabdi xirsi warsaday oo isaguna taxqiijiyey gabadhaas ninkii inuu islaamay oo muslim yahay waalidkeediina oo saas isagoo muslim ahaan ugu nikaaxiyey ayay keeneen marka saasaan dhegaystay marka haddee awalba haddee waxbaan aan haysanay wixii haddee iska bedeleen wixii iska bedelay waa in ay soo baxaan waayo iyadana wax lagu qaybsado waayo marka warkaas b b c dana wuxuu ka keenay idinka la yiraahdo idaa waqaca waa niman garanayo waaye b b c dana uu ka keenay warkaas inay maaragtay ay rumeeyeen oo maaragtay ay jalaa-idka weliba amerikaanka iyo ay ka keeneen marka kiiskaas marka sheekh cabdin hadda waa nin culamaa weeye weliba haddee codkiisa waxaad moodeen inaan gartay hadduu yahay nin aan maaragtay dee qur-aankana mar saaxiib ku ahayn laakiin inuu cabdirasaaq ahaa aan u malaynayo hadda cabdi xirsi ayaa magaca ugu qoran u yahay cabdirasaaq naanas inuu lahaana waa u malaynayaa oo waagaas oo hadda iyadii lafteedii waxbaan ka halmaamo laga yaabo maqan fayooka iyo waxyaad garan maayo ayaa jirtay marka sidaas darteed hadeed waa nin culamaho la yaqaano waayo alxamdulilah marka waa ku qanacnay kiiskaas waxaan garanay maaragtay arrintaas annakana waa ka noqonay ceebeyntii waa ka noqonay annakana weliba anigu habaaraan ku daray maaragtay habaarkiina oga noqdo allah u barakeeyo allah isu barakeeyo isagana waana libin fiican oo hadda waxa weeyaan runtii libin fiican waayo haddii ninkii ay soo islaamisay markii horena saasayba ahayd inay maaragtay u dhaqanto oo ninkiioo islaamay dadkii muslimiintii u keentay tirada ninkii waa islaamay ninkaa laygu nikaaxiyo maama waalidkii marka hadday waalidkeeda nin maalka muxuu ahaa waxay yidhahdaan nin barxaday baqyo waxuu ka baqayba maaqaan hadee waxay ka baqda aniga garan maayo laakiin haddii kolleyba inay hadda saas hadday u qarsatay hadda markii ay warka soo sheegtay iyadana inay kusoo dartay ahayd ilaa dad badana iyadu dad caadiya qof caadiya ma ahayn qof waxay ahayd qof walba sugaayo caalamka oo dhan laga sugaayay ahayd marka inay sheegto ay tiraahdo ninkiis aan isguursanay ninkiina waa si aan shubha looga qaadin waa weeyaan waa islaamo waa muslim waa iyada ay ahayd inay sheegto warkaas ay maaragtay bishaarada ay kusoo darsatay inay ku dartaa la rabo si muslimiinta maaragtay ay uga qanciso kiiskaas marka waa saas waaye inaguna waa kiiskii waa ka noqonay aan ku maaragtay runtii weliba habaar aan ku daro aniga aad baan uga xanaaqay runtii gabadha dadkii difaacaan ku jiray markii hore oo aada iyo aada uguna maaragtay ambaliyey aniga isma naqoonin laakiin mawqifkaas aniga sida badana mawqifka qofka yani wanaagga waa qiimeeya raganimada waa qiimeeya geesinimada waa qiimeeya waxyaalo badana marka dadka ku qiimeeya marka waxa weeyaan haba yaraatee qofka wanaaggii uu sameeyana waana ku taageeraa waana ku jeclahay haddii qofku meel ka dhac uu sameeyana deed iyadana waa waxa laga xanaaqo waay deed qofku deed ilaahay dartiisa in loo xanaaqaana diintay ka mid tahay oo warta gabadha wax kale nagama gelin annaka waxa weeyaan diinay meesha noogu joogtay diinay ku tartantay ay maaragtay noogu joogtay meesha diinay inay difaacday markii horena ku talagashay oo hatii warkii hore ay ninka le maaragtay b b c da la yeelatay difaacaasa ku jiray aada iyo aad oo inay maaragtay yani waxyaalo badan marka anaga gabadha waa ku tashanaynay runtii meeshii noo joog marka yani waxyaalahaas ma aanan la rabin oo aadan uga xumaana sida runta ah maaragtay marka sidaas darteed marka waa saas waaye
wadaadka sheekh cabdiga marka xoogaa waxaan arrimahan xoogaa aan islahaa oo isagu dadka oo wax ka sheegay inuu yidhi way ku degdegeen laba arrimoodaan meeshaas ka dhihi lahaa oo xoogaa inay dembi ka tooba keenaan laba arrimoodaan ka dhihi lahaa mid waa ninka waxa weeyaan qaacido waxaa jirta maaragtay waxa weeyaan alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana qaacido muslimiinoo la yaqaano waay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana marka wixii lagu ogaa ayaa lagu xukumayaa haddii wax kaloo oo soo baxay aysan jirin oo meeshay yidhaahdaan qaacido ay hoos gashaa alyaqiinu laa yuzaalu bishaki la dhaha alyaqiinu laa yuzaal marka ninkan inuu gaal ahaayo yaqiin ahayd waxa weeyaan maaragtay asalkiisu inuu gaal ahaayaa la ogaa meeluu ku islaamana cidina ma ogeyn marka yani aayaddii ma gelayso maaragtay ilaa nimankaas waxay la yimaadeen daliil ay la yimaadeen oo waxaan sheegayaa aayaddii oo sheekh cabdi u qaatay oo ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fi lardi idaa darabtum fii sabiili illahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina tabtaquuna carda alxayaati dunya marka fatabayanuu fatathabatuu labadaba qira'a laba qiro maaragtay maartis oo bahalkii maxay ahayd mutawaatira waay marka sax waaye marka laakiin waxaysan kaga dugnayn ninkan ay dileen saxaabadu wuxuu la yimid maaragtay daliilow keensada salaanuu bixiyey salaantuna waa calaamo islaam waay marka alaslu maa kaana zawaalaa dhacay waa loo jeedaa ninkii salaamuu bixiyey salaantuna salaan islaam waay waxaa la mida ninkii usaama oo maaragtay uu seefta kor ugu qaaday yidhi laa ilaha illa allah khalaas markaasu waa is yidhi shubhadii nimanka warana waxay is yidhahdeen waa isku badbaadinayaa yidhaahdeen usaamana wuxuu yidhi waa isku badbaadinaya maarata islaamnimada ka dhammaa saas oo kale marka saasaa lagu naqdiyey labadiiba soo ma ujeeda maadinkaa qalbigooda jeexay marka tanna ilaahay baaba difaacay tanna rasuulkaa difaacay sala allahu alayh wasalam marka wax wey ma gelin sababto waxa nimankan waxay la yimaadeen wax tusinaya islaamnimadooday la yimaadeen laakiin ninkan wax tusinaya islaamnimo lama imaanin manana tusin dadkana ma tusin gabadhu ma sheegi asagu isma sheegi waalid ma sheegi annaga gaaliman ku ogey goormay zuusho marka zawaalkaas annaga wax shaqaahan ku leenaha male waxyina noomana imaanin baqay baan ognaha annaga isagii ma sheegin ayadii ma sheegin waalidkiina ma sheegin waxayna meeshaasna waxaan dhihi lahaa waalidkay ku habboonad inuu dadka muslimiinta u sheego oo yidhaahdo gabadha yaan la tuhmin saasaa dhacday meeshay kaga bariiqatay ma garanayo waa nin iska miskiina laga yaaba marka kiiskaas marka saasuu ahaa marka isma shabahaan oo maaragta dadka muslimiintahay dembi meeshaas kuma aysan gelin dembi ma aysan gelin ninkan alaslu maa kaana calaa maa kaana saasaan lagu xukumay waa mithaal waxay uga dhigaan qofkaan yani islaamaa lagu ogaa laa yuzaalu bishaki waay yani waa laga shakiyey oo maaragtay maalan hadda gabadhaan hadda kiiskaas aan anagu macsiyada aan u malaynaynay yani laguma gaalaysiin karo sababto waxa weeye gabadhaan muslima yahay waa yaqiin waa inay ku zuusho wey wixi macsiyana kuma zuulaya islaamka soo ma jeedo marka waa saas waaye marka laa yuzaalu bishaki waay alaslu maa kaana calaa maa kaana biqaau maa kaana calaa maa kaana saasay ahay marka ilaa aan helno annaga adilo ka qaaday ninkaan wixi hadduu tukaday waa ku arag hadduu weysaysanayay waa islaam waaye waa macruuf waaye hadduu maaragtay masaajidkii galay waa islaam waaye waa macruuf waaye laakiin ninkii hore anagu ku ogeyn inuu gaal yahay ma anaga ma waxyaa noo imaana ayadii ma sheegin waalidkii ma sheegin isagina isma sheegin marka dadkan ma dambaabina aslu ma calaa maa kaana aslu baqaau maa kaana calaa maa kaana ku shaqaynaya wax loo sheegay oo kalena ma jiro shubho kalena ma imaan midda labaad waxay ahayd waxa weeyaan maaragtay dadka bahalkii maxay ahayd xagga ijtimaacana midaan uga haystay oo waxa weeye markii ninka la yidhaha magaciisa gabadha xaggeeda inta ayaan ka bixin taas gabadha xaggeeda waxa weeye waxaa dhanni suu'a waxaa keenay waa meesha waa man ittaqa shubuhaati faqad istabra lidiinihi wa cirdihi soo ma jeedin markaa shubuhaadka qofku ayadaa shubuhaadka gashay marka yuusan qofku maaragtay bahalkii maxay haddii shubahaadka asagu galo dadka cirdigiisa waa la taabanaya
gabadhan marka shubahaad ayaa jiray oo maaragtay halkiina waa tii nimankii maaragtay bahalkii magaciisiga ahaana iska la ciyaarto la magaciisiyey yani inaysan oo waxyaalo inaysi wax la dhowro inaysan dhowrayna meesha ka muuqato ninkaanana meelay la tagtagtay oo lagu tasawiray oo la socotay soo jeedi waa la arko maaragtay caynkaasaa lagu marka tuhmadaasaa jirtay tuhmadii marka hadday ku dartay iyadoo wixii soo sheegin haddana maaragtay yani in la maaragtay maaha waa tuhmada qofku hadduu galo cirdigiisa waa la taabanaya waa daruuri waay ha yani dadku malgu aamusi karo waxa dadka maaragtay yani waxa lagu dhaqan yahanaba waa waxaas waay in qofku shubahaadka iska ilaaliyo أو شرف كيسة إلى شذو شبهات كيسة إلى يعني دين كيسة شرف كيسة وقولنا بتجلاه قف مركز سوى تو كتر تلابسة تو خلاص وحاو والنهاية وكانوا ما في عمل النهاية سوى جدي مركز ما جاري سو وحلقيها وين سنجاري ما قذف إني سنجاري لكن قفكي ولا توم ما يو ولا ليه قف كانوا نقل حنية ما لا مناسبة هي مرمري جري حد دارنا مركب هون ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع منه أن يرتع فيه حوية نك حول الحمى يقولون لنا وروريديس يعني كان مالي لسع سعود مالي لقد قدينيس مالي لعشيس ما لسع سعود ها مركب تدكم مارت محالة عيسيوبا يقف في شبهات كأصيع قلي سجى شبهات كي قلي مركب معناها وحويان هالكاسنا وحاقول لها حوجان يعني شي عبد حوجا يراها وحويان مرر بدنا وحان يصير الدفاع هنا كترح تبتاع ملاينا يا قفكم مسلم كاين الدفاع صح واي لكن لقيا بين القف كلنا مارتي عدكو ومارتي يعني عبد الرحمن حوجا مارتي يراها تابتي أنا حوجا أنا أركاي عبد الرحمن بشير شيء أنا لفظي شيخ أساس وما بدني وأنا حتى حسن ظاهرة يراقبكم مركب ورصة مركب وما بدني يعني لقب كاسي بدنا استعمال كيس وما بدني ذلك مقعيد ذا نسكج على أنا مقعيد كان جعله هنا شيء مركب حقاق ما ينتهي وكدريمة حقاق يراها دفاع هنا كبض بديس من الدفاع كبض بديس وكأركاي marka wax weeyaan sidaas marka darteed oo maartay yani difaac hada qof mushkila waa sax waaye laakiin hadana hadaad moogtahay dadkii kale ku xad gudubtid ayada lafteedu waa nooc ceeb waa ana ku nooc ceeb waa marka laakiin khayr Allah ku siiyo waa ka aqbalnay Allah ku barakeeyo kalsoonidaasna insha Allah taala marka hadeed aqoonti wali waa iga gadanta hatta codka xoogaa maartay aan ba kugu soo dhawaaday oo codkii codaan aqaan ile ekaaday codkaa codaan aqaan ile ekaaday marka hadan gadaal u raadiyay waxaan isiri ilkii waagi maartay quraankooda subcin jirtee ama uu yahaan isiri marka magiciina xoogaa waxba iga galgalay Cabdirasaaq inuu ahaa iyo maartay Cabdi kaliya kuma aqoon Cabdirasaaq inuu ahaa iyo Cabdul baalki Fattaax inuu ahaa wixii iga kala gedgedmay adigu على كل حال ساس waaye anigu xogaa codka ii soo dhawaaday kulli ayaan doodna waaba dhacday rag waa hore ugu dambeeyeen codka ku gartay waa jirtay marka adigu على كل حال warku marka intaas marka intaas uu ahaa marka gabadhana ilaahay maartay haka aqbalo Allahna uu aqbalo anna uu wanaajiyo wadaadkii furayna waa maqlay asaga laftiisa inuu guursaday waa maqlay waa iyadana meelaha